بسم الله الرحمن الرحيم. سلح سوماليلاند للقلا سمانتو كجرتا بدوينت إلهي أومي waxay leedahay qayb kore oo hirar baaxad weyn leh iyo qayb hoose oo mar walba degan oo qurux badan sidoo kalena xiriirka ka dhaxeeya mujtamaca walaalaha ah ee ku kala nool waqooyi iyo koonfur waxa lagu tilmaamaa baddaas qaybteeda kore iyo qaybteeda hoose marka aad fiiriso dhanka xiriirka walaaltinimada ismartigelinta ganacsiga iyo isguursashada ka dhaxeeya labada mujtamac waa sida badda qaybteeda hoose ah oo ah mid degan oo qurxoon oo dhibaato weyni ay ka jirin laakiin marka aad fiiriso dhinaca siyaasadda waxay u kacsan tahay sida hirarka baaxadda weyn ee badda korkeeda ka guuxaya taasna waxa ugu wacan dagaaladii sokeeye ee ka dhacay u dhaxeeyay ururka SNM iyo dawladda Siyaad Bare dagaalkaasoo khasaare aad u baaxad weyn dhaliyay oo ay dad badani ku dhamaadeen runtii waa wax lala garaabo dhibaatadii loo geystay dadweynaha ku dhaqan Somaliland waxay ahayd gaboodfal iyo xadgudub laakiin marka la isku daro xanuunkaas oo dhan burburka iyo jahwareerkii Soomaalida oo dhan ayay taabatay qof ka nabad galay oo Soomaali ah waa ay yar tahay Soomaalida oo dhan ayay saameysay waa tii hal ku dhag loogu dhigay xabadi keento iyo xabadi saarto laakiin dhibaatada maanta ugu weyn ee haysata ayaa waxay tahay xamaasadii dagaaladaas ay ka dhalatay ayaa waxay dhaliyeen laba qolada koowaad kuwa goosashada u ololeeya oo koonfur oo dhanna u sawira inay yihiin dad xun oo aan mar dambe in koonfur la soo hadal qaadaba ay habooneen iyo kuwa ayagana la yooyootama ama gaashaanka u darooro oo isku daya in si indhalla sanka uga geliyaan wax la yiraahdo muqaddas iyo midnimo aan la taaban karin runtii in la midoobo in la kala go'o waa arin dood cilmiyeed ama dood furan u baahan una taalo dadka iyo geedi socodka taariikhda runtii maanta xaaladda aan ku jirno magaci Soomaaliya ayaaba khatar ku jiro taasoo u baahan in si kala jir iyo wada jirba loo badbaadiyo magacaas si kala jir loo badbaadiyo uguma jeedo xumaato waxaan ugu jeedaa inay tahay wax la bogaadiyo inay degaan walba noloshoodii dib u dhistaan arrimahoodii gaarka ahna u samaystaan ismaamul lagaga baxo fowdadii hore u jirtay tusaale ahaan waa wax la bogaadiyo talaabooyinka ay Somaliland qaadeen xagga dhismayaasha siyaasadeed oo ay maanta u gudubtay doorashooyin dadweyne oo axsaab ku loolamaysa iyo madaxweyne ku soo baxa doorashooyinka noocaas ah sidoo kale dhinaca nabadgelyada soo celinta adeegyada bulshada oo ku burburtay dagaalada sokeeye ay soo celiyeen maamulka Somaliland inkastoo adeegyadaas ay wada gaarin deegaanada Somaliland oo dhan laakiin waa wax la bogaadiyo sidoo kalena maamul goboleedyada kale ee dalka ka jira ayagana horumar weyn ay gaareen oo aan hore loo arag dib u dhiska deegaanadooda iyo dib u soo celinta adeegyada bulshada taasna waa wax la bogaadiyo runtiina ceeb ma aha in dad walaalo ah oo meel wada dega oo qolo walba inay dhari gooni ah saartaan oo dharigooda gooni u saartaan laakiin waxa ceeb ah ama ayaan dara ah in dalka dibaddiisa in qof walba dhari gooni ah oo saarto maxaa yeelay siyaasadda dibadda iyo arrimaha dibadda macnaa waa ay ka duwan tahay kan gudaha ah maxaa yeelay waxyaabaha loo yaqaan globalizationka ama caalamiyeynta ayaa waxay ka dhigtay adduunyadii meel khatar ah jidcadde aan lahayn sharci kala haga marka waxay u baahan tahay siyaasadda dibadda iskaashi iyo wadajir ayay u baahan tahay marka waxaan ku gubaabinayaa in ay Somaliland hormuud u noqoto sidii dib loo dhisi lahaa qaran Soomaaliyeed oo ku dhisan cadaalad kana fog xadgudubyadii kala cararka keenay waxaan leenahay walaalaheen Somaliland koonfur oo hagaagto waxay dan ugu jirtaa Somaliland geeska Afrika oo dhan ay dan ugu jirtaa qaaradda Afrika oo dhan ay dan ugu jirtaa adduunyada oo dhan ayay dan ugu jirtaa marka waa inay Somaliland qayb ka noqotaa dib u soo celinta nabadda walaalahooda degan macnaa koonfur taasna waxaa lagu gaari karaa
dib u heshiisiin dhab ah oo geedka quraca hoostiisa loo fadhiisto insha allahu tacaala. ugu dambayntii waxaa naga waana ah yacni qolada leh midnimadu waa muqaddas ama kala go' ma jiro. waxaa habboon marka hore yacni inaad wixii tabar ah aad haysiin aad u jeedisaan yacni macnaa sida aad u badbaadin lahaydeen yacni inta idin khusaysa ama idinka tala qaadata. macnaa sidoo kalena waxaan idinku waaninaynaa inaad ka waantowdaan sii fogeynta maangaabnimada ah ama hadallada middi kutaagga ah ee sii fogeynaya walaalaheena Somaliland. khasab iyo yootan wax laguma gaari karo, waa in leys qanciyaa, leysuna garaabaa. waxaa loo baahan yahay garnaqsi degan iyo maskax wax garata oo u furan fikradaha dhinaca kale ee walaalkii. haddaan u soo leexano dhanka kale ee u guntan go'itaanka Somaliland, marka hore runtii midnimo iyo kala go' midkii roon rabbiya og. laakiin waxaa habboon inaad walaalayaal u martaan waddo ka fiican habdhaqanka khaldan ee hadda u maraysaan. tusaale ahaan, waa qalad in Soomaalida koonfure oo dhan loo sawiro dad xun oo dhurwaawada ah. cawaaqib xumo ayay leedahay marka lagu beero jiilka cusub ama carruurta yaryar ee Somaliland nacayb iyo cuqdad loo qaado Soomaalida koonfurta. culimada ku takhasusa cilmi nafsiga carruurta waxay leeyihiin carruurta hadday ku barbaaraan nacayb iyo cuqdad waxay curyaaminaysaa hal abuurkoodii iyo ikhtiraacooodii. yacni waxay noqonayaan carruur ay wax soo saarkoodii aad u yar tahay, carruur oo yacni isticmaalo maandooriyaal. maxaa yeelay cuqdaddii iyo nacaybkii ayaa gubaysa, waa curyaaminaysaa. marka taasna dan uguma jirto dhaqaalaha bulshada Somaliland. dhalinyaradii waa hantida ugu weyn waddankii, da'yarta waa hantida ugu weyn. marka da'yartiina ha ku abuurina nacayb iyo cuqdad. taas waxay dhibaato u keenaysaa horumarinta dhaqaalaha deegaanka Somaliland. waa inaad ka waantowdaan hadduu Ilaahay yiraahdo walaalayaal. gabagabadii, taariikhda dunida waxayna baraysaa wax wada jir lagu gaari waaye laguma gaari karo tafaraaruq. dhibaatada ugu weyn oo dhacday waxay ahayd waxaa markiisa hore halaabay alifkii heshiiskii midnimada, taasoo nagu dhibtay macnaa albaqarihii ahayd in la helo qaran Soomaaliyeed oo raaga. marka hadduu alifkii oo heshiiska hore ee midnimada khaldamay, Soomaalidu waxay tiraahdaa taladii xumaata iyo gudniinkii xumaadaba dib ayaa loogu noqdaa. bal dib aan ugu noqono heshiiskii oo midnimada, macnaa aan dib u eegno. qolo walbana ha keento qorsho qof walboo Soomaaliyeed u cuntama. waxaa la yidhaahdaa haddaadan indhaha iska arki karina bal isgarab istaaga oo isgarab socda. marka waxaan idin leenahay xoojiya ganacsiga labada oo yacni deegaan ka dhexeeya, isguursada, isdhexgalka badiya, iswalaashada, si hirarka siyaasadeed ee waqooyi iyo koonfur ay u degaan. waxaan hadda ku jirnaa bishii Muharram oo ah bishii ugu horeysay sanadka islaamiga ah. marka waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu sanadkan noo noqdo sanadkii ay sulux ka dhacaysay Somaliland iyo walaalahoodii koonfur degan hadduu Ilaahay yiraahdo. jazaakumullahu khayran. waa barnaamijkii horumari ummadaada oo idin soo gudbiyey walaalkiin Baazi Xaaji Busuri, iyo waxaa isku soo dubariday walaalkeen Axmed Amiin Xasan. waxaan ka afeefoonaynaa ama afeefo naga ah inaad wax alla wixii khalad ah aan ku sheegnay naga cafisaan barnaamijkan. walaalayaal la socda barnaamijkan waa barnaamijkiina. jazaakumullahu khayran.